Hello, kusoo dhawaada maangal iyo muuqaal kale. Waa muuqaalka lixaad oo aan ka diyaarayno basicska luqadda JavaScript. Maantana waa functions waxaa loo yaqaan. Waa maxay functions? Markii aad qoraysid code JavaScript ama luqad kale ha ahaadee, waxaad qoraysaa laymo tiro badan oo awaamir ah. Boqolaal line baa laga yaabaa in kula gaaro, kumanaan line baa laga yaabaa in kula gaaro. Haddaba, haddii aadan codekaaga aad qorayso aadan koox u hagaajin, hadda wuxuu noqonayaa wax aan waxba laga fahmin oo isku dhex yaacsan, gurisaa isku dhex qasan oo kale. Haddaba functions waxa weeye qaab codeka loo hagaajisto. Waa codekii inaad group u xirtid, group kastoo isle wax ka dhexeeyaba inaad isku xirtid. Hadda tusaale aan bixin, waxaan sameynaynaa function aad u fudud maanta. Laga yaabo inaad u baahan lahayn, laakiin waa ku tusaaleynaa kaliya. Function waxaan sameynaynaa laba tiro isugu kaa daraya. Bismillah. Marka waxaan sameynaynaa labada tiro markii la isku daro meeshii lagu kaydin lahaa. Tusaale ahaan oo kale le aan dhaho result one askaga bixiyo. Qiimana ha siin variablekan qiimaha siin hadda. Waa siin karaa zero waa ku bilaabi karaa laakiin waxba hataa siin. Kabadana functionka aan sheego aan qeexo function markaa qeexaysid waana ku bilowdaa ereyga function naftiisa. Function waana ku bilowdaa. Kabacdina functionkaaga waana bixisaa magac. tusaale ahaan waxaa bixinayaa error loo bixinayaa isku dar ama add ama waxaad intuu bixiyo. waana sameysaa bracketskaas normal brackets waana sameysaa. kabacdi waana furtaa curly braces waana furtaa. laabta nooca u sameysan garlaha amoodi waana furtaa. kabacdina waana sameysaa wixii aragtay inuu sameeyo functionkan waxaa rabaa hadda inuu sameeyo laba tiro inuu isku daro. waxaan dhahayaa tusaale ahaan labada tiro marka hore samee constants kaga shacaya. labada tiro isku daro waxaan rabaa inay noqdaan x oo qiimaheedu yahay tusaale ahaan 6 iyo constant kale oo laho y qiimaheedu yahay 11 tusaale ahaan oo kale. labada tiro waxaan rabaa inuu isku daro kabacdina qiimaha isku darkooda uu ku kaydiyo result x la yiraahdo. haddaba resultigii baan hadda qiimo siinaya. waxaan dhahayaa marka waxa weeye shaqadu result 1 waxay noqonaysaa x plus y. x plus y. hadda functionkii waa taariifin. functionka intaan waxaa la yidhahdaa definition. tusaale ahaan oo kale haddaan dhaho waxaad daabacdaa qiimaha let bal u fiirso qiimaha aan dhehe result daabac result 1 daabac console.log aan adeegsado console.log result 1 wuxuu yidhi undefined ma tacriifsana sababta qiimaha maanaasin. waxaa laga yaabaa sidaas annaga halka ka bedelnay. haddaba waa tana meesha functionka waxaa la yidhahdaa definition. functionka markaad tacriifsid define garaysid si aad u isticmaashid waxa u baahan tahay functionka inaad u yeertid. haddaba u yeerid waa saan inaad functionkii magaciisa qortid error baa la dhahaa kabacdina aad laba bracket qortid. billahi tawfiiq. hadda fiiri markaan daabacno console.log tusaale markii koowaad intaana u yeerin haddii aan daabacno intaana functionka u yeerin resultiga qiimo ma lahayn undefined buu ahaa. haddaa gadaal ooga yeerno fiiri markaan functionka u yeernay kabacdi qiimi muxuu noqday 17 qiimihii resultiga wuxuu noqday 17 waa maxay waa 6 plus 11 yani qiimahaas uu bedelay. functionkan marka meesha dana u adeegsan karaa meesha doono yaa u adeegsan karaa. okay badanaa laakiin markii functionka la samaynayo saa looma sameeyo. badanaa looma baahdo qiimo banaanka yaallo wax laga bedelayo ama intaana kaa u gelin. badanaa looma baahno in qiimayaal halkan lagu tacriifiyo looma baahdo oo see la sameeyaa. hadda error buu siinaya sababta x iyo y wuxuu yihiin buu garan la'yahay ma uu garanayo sababta waa tirtira tacriifintoodii. functionka waxaa siinaya wax la yidhahdo parameters. waxaa dhahaya x iyo y wax la yidhahdo functionka c. functionka waxaa siisaa x iyo y wax la yidhahdo kabacdina x iyo y waxay doonaan ha ahaadeen resultigu waxa weeye isku darka x iyo y. markaa functionka hadhow u yeerayo waxaa siinayaa x iyo y waxaa ka rabaa inay noqdaan. tusaale maanta waxaa rabaa inay noqdaan x iyo y tusaale 11 x ana 11 noqotaa rabaa y na tusaale ahaan 6 oo kale. intaasaa u yeera markaas hadda waxaa dhahayaa waxaa daabacdaa
result ga daawacan dhahaya console.log result 1 result 1 maxay noqotay 17 kan see u bedelay wuxuu isku daray x y oo x y qiimaheedu mee x y qiimaheeda waxaan siinayaa hadda parameter bay ahaayeen parameters baa yiraahdaa parameterkan qiimahooda waxaa siinayaa marka functionka u yeeranayo meesha doonaa uga yeerto marka u yeeranaya qiimaha siinaya haddaan meeshaan bedelo fiiri saan koyton daa ka dhigo qiimihii result wuxuu noqonayaa 22 haddaa ka dhigo sababta markasta isku daraya waxaa doontusi saan haddaa ka dhigo number 1 qiimaha wuxuu noqonayaa 1 iyo wadamayn 2 lagu daray sababta intaas wax ku daraya intaa ku daray labadaan isku daraya okay waa sii baabi'in karnaa waxaan dhihi karnaa tan laftigeeda lama baahna oo maxaa sameynaa functionka laftigiisa waxaan dhahaynaa please waxaa noo soo celisaa qiimo noo soo celi qiimahan waxba uma baahna inaad bedeshid tuur ee waxaa laftigaagu noo soo celi maxaan ka wadaa waa tan la fiirso waxaa adeegsanayaa array la yiraahdo return waxa ii soo celisaa functional isku darka x y ii soo celi isku darka x y ii soo celi oo see u isticmaalaya waa tanaa saa u isticmaalaysid result hadda meeshaan ma jiro wax result yiraahdo sadafta aan tirtiro ma waxaan dhahayaa sanad dhahayaa bal u fiirso meeshaan haddaan tacriifinaya const const result for example result 1 hadda tacriifinaya result 1 wuxuu la mid yahay dhahayaa hadda wuxuu la mid yahay functionkan error saan laba tirana sii saan maanta 33 aan sii iyo 56 aan sii marka intaan u yeero wuxuu soo celinayaa qiimahan return ku adeegsanaya qiimahan halkaan dhigaya hadda waxa soo baxaysa result 1 wuxuu la mid yahay qiimaha halka ka soo baxaya oo maanta isku dartay labada tiro hadda waxa doona ku soo karaa marka qiimahaas waxa dhigaa soo idaawa dhigi karo result 1 daawan dhaya result 1 uu daawacaya waxay noqotay maanta 89 isku dar 33 iyo 89 يعني function kan intaan uu soo celiyay markuu soo celiyay waxaan iri amarka halkan ayuu kayd bacdana waxaan iri tan laftigeeda ii daabac console.log okay function kan waxa la yiraahdaa iri array baa la yiraahdaa waxa samayn karaa function la yiraahdo tusaale ahaan kale multiplier waxa doontid function multiplier disa loo qoraa laba wuxuu qaataa tusaale ahaan kale laba parameter buu qaataa laba tiro isku dhufanaya param 1 aan iska bixiyo iyo param 2 laba parameter buu qaataa kabacdina wuxuu soo celiyaa return maanta hore aan ka adeegsan return wuxuu soo celiyaa maanta param 1 oo lagu dhuftay param 2 labadaas soo celiyaa hadda waxaan dhigi karaa tusaale ahaan laba tiro marka u baahdo tusaale ahaan waxaan dhahayaa waxa ii daabacdaa maanta waxa ii keedin oo markii hore waa keedii Soomaa maanta degdeg hal mar igu daawan dhahay adoon waxba keedin console.log multiplier ii daabac laakiin waxa siisaa laba qiimo isku dhufto rabaa maanta number siinaya no a number sababta trillion ma siino isku dhufto ana waxa trillion loo isku dhufanayo soo celi saan laba tiro dhahay isku dhufo ana waxa isku dhuftaa 6 iyo waxa isku dhufataa 6 kala isku dhufo wuxuu soo celinayaa 6 saan 6 iyo waxa isku dhufataa tusaale ahaan 3 statum soo celinaya waxa isku dhufataa tusaale ahaan kale 6 iyo 67 isku dhufo wuxuu soo celinaya 420 isku dhufanaya multiplier waxaad inta samayn kartaa laba mid ka sii adag aan sameynaa ilaa hadda waxaan sameynay laba function baan sameynay laba function aan sameynay waxa weeye waa mid tiro isku daraya iyo mid laba tiro isku dhufanaya mid tiro la wajibaaraya waa soo celin waa sameyn kartaa okay mid kale oo ka yar aan sameynay waxaan sameynaa marka koowaad array constant array la yiraahdo grades waxa ku kaydsan arday natiijooyinkiisa tusaale ahaan 95 70 88 boqol tusaale ahaan oo kale 76 99 66 arday baa inta natiijooyinkan ay ka soo qaado kale waxaa sameynayaa function ii soo celiya ka soo qaado kale waxa u baahanay tirooyinkan isku dardarkooda rabaan soo celiyo okay waxaan dhahayaa functionka magaca u bixinayo tusaale ahaan kale functionkayga
هلا يا حلا sum وضرب الله sum كان وحو قاتا parameter بقاتا parameter ما توحى بحي بارام بس كده بحي ما دام هل حبوا قادنا يبس بارام كده سكيب بحنيا function كان وحو قادنا دونه هو grades كان grades ما كرا ماشي grader ما grades كانوا قادنا يا markuu qaato waxa rabaa inta isku dardarkooda soo celiyo marka koowaad waxa ay tacriiftaa horta variable koowaad variable yiraahdo kale tan waxa iga dhigtaa sum function ka sum yiraahdo sababta ereyga sum meel kale rabaan adeegsado sum function iga bixi function kan variable sum yiraahdo i tacriif qiimihiisana waxa ka dhigtaa marka koowaad 0 sababta uga dhigaya daawanaysan waxa rabaa marka koowaad aan dhaho qiimaha sum badartu marka koowaad waa 0 marka labaad waa 0 oo lagu daray 95 yani marka saddexaad waa 90 ta oo lagu daray 70 marka afraad waa 79 oo isku sii daray oo lagu daray 80 yani 0 ka bilaabay sababta meel ka bilaabay oo baahnaa tirana kama bilaabi karo hadii kala samkan khaldamay 0 waxa kama tar sadii inta lagu daro sababta marka 0 ka bilaabaya waxaan dhahayaa marka waxa adeegsanayaa muqaalka ugu dambeeyay عشان كبرنا وها for loop بعدك سنة حنايا for variable I لها تعريفنا وحنا كبر على هي 0 أيضا وأنا كيراتا سيدا حلا سميني parameter كان لوسين دون هذا grades كنا قلنا هذا parameter لكن param dot length كان وين لقى يرادا param dot length وين لقى يرادا مركز تنا أيضا وين هلا قدرة أوكي كبعد محاسمية waxaan dhahayaa sum wuxuu la mid yahay baan dhahayaa markasta inta la marayo param dot I qiimaha sum wuxuu la mid yahay qiimaha sumkii hore oo lagu daray param dot I wabillahi tawfiiq yani intaan maxay samaynaysaa koo waxay ku wareegsanaysaa tirooyinkan ay ku wareegsanaysaa for loop 0 ka bilaabaysaa booska 0 kana la yiraahdaa booska 2 booska 3 ilaa laga gaarayo length dheerka tan dheerkiisa laga gaarayo oo ah booska ugu dambeeya laga gaarayo markastana maxay samaynaysaa qiimihii sum bay update gareynaysaa oo maxay dhahaysaa maanta sum waxa weeye qiimihii hore oo lagu daray qiimaha hadda cusub soo marka koowaad qiimaha sum waa 0 waxay ku daraysaa qiimaha sum oo 0 waxay ku daraysaa booskan cid fadhida qiimaha sum wuxuu noqonayaa 9 meesha 9 isku daraysaa marka labaad qiimaha sum oo 9 waxay ku daraysaa booska cid fadhida 9 waxa isku dartaa 765 qiimaha sum 165 buu noqonayaa ilaa laga gaarayo meesha ugu dambayso oo shaqadu ay dhamaanayso ugu dambayn sumku wuxuu noqonayaa marka isku dardarka intaas maxaan dhahayaa functionkii marka functionkii waxa dhahayaa waxa soo celisaa qiimaha sum wuxuu ahaa wuxuu doonaa ahaado sum iyo soo celi ugu dambaynta sum iyo soo celi hadda marka waa adeegsan karaa I hope inuu shaqeynayo horaa ka daabaci karaa ama marka waa inta meel ku kaydiyaan daabaci karaa hore aan ka daabaco and console.log sum function idaba laakiin waa ana wax siiya waxaan siinayo parameterkan siinayo wuxuu noqonayaa grades ka aad waana grades u dhigaa grades isku dardarkooda qofkan isku dardarkiisa wuxuu qaatay 6 maado 1 2 3 4 5 6 7 maado qofkan wadartiis maxaa weeye 545 haddii aan meesha halkii ku daro fiir 66 meesha 6 dood ka dhigo meesha waxa laga rabaa inay noqoto 590 haddii kala xanaga khaldan 590 halba ku darsamay sababta intaan maxay xisaabinaysaa samka xisaabinaysaa okay dawam waxaan iri function waxa weeye waa qaab code-kaaga koox loogu xiro block loogu xiro function waa boorso kale waa boorso aad rabto inaad ku fidato group alaab isle ama box aad ku fidato group alaab isle taakiya maaha function wax kale oo ku fududeynaya jira tusaale ahaan oo kale waxa kale oo ku fududeynaya waxa intaan tusaalaha gelin in aad koox code ah oo aad qoratay aad meel kale u adeegsan karto adoona qasab kugu ah wixii oo dhan marlaad ana qortid tusaale waxa qortay 30 line oo code ah hal wax qabanayo ugu dambeynta sida fiir meeshan intaasoo line waa intee line inta waa intee line taqriiban waa 4 line aska waa 4 line afarta line hal wax bay qabanayaan oo ah inay xisaabiyaan wadartaas waxa laga yaabaa marka dhawaan code waaweyn qoraysid
inaad qortid 40 line oo ugu dambeyn hal wax laga rabaa inay qabtaan hal wax natiijada ugu dambaysa ay gaarayaan hal wax aanay tahay haddaba ka hor haddaan rabo meesha koodhkan aan meel kale u adeegsado mar labaad layga baahan yahay inaan mar labaad qoro maana khas mar labaad inaan qoraa my function wuxuu kuu fududeynayaa inaad magac intaa u samaysatid hadhow magaca meel kasta u adeegsan karid yacni reusability aad meel ka adeegsan karid haddaan tusaale samayno waxaan samaynaa function la yidhaahdo average hadda qofkan wadaartiisa xisaabinay ma warro wadaartiisa kasoo qaado kale waxaa rabaa averagekiisa celceliskiisa qofkan intuu keenay okay function cusub baan samaynayaa oo la yidhaahdo tusaale ahaan averageka wuxuu qaataa asna baaran qaataa sababta waxaa rabaa inaan natiijooyin u dhiibay averageka natiijooyinka u dhiibaya waxaa rabaa inuu ii xisaabiyo celiska sida darteed waana khasab waana siiyaa barometry dhan waxbaa rabaa dhowna u dhiibay waa siinaya si aad average u xisaabiso waxa u baahan tahay qaacida averageka maxay ahayd markooda tirooyinka lagu siiyo isku dardar kabacdina waxa u qaybisaa inta yihiin inta isku dardar kabacdina waxa u qaybisaa inta yihiin waa meeqa kow labo saddex afar shan lix toddoba inta isku dardar waa intaan kabacdina toddoba u qaybi intaas average la yidhahdaa haddaba waa laba step isku dardar kabacdina toddoba u qaybi isku dardarka ma khasba ana mar labaad qoro jawaabtu waxa weeye may sababtoo halkana isku dardarkii functionkan wuxuu qabanayaa dhan waxa ay isku dardarka sidaa darteed uma baahni mar labaad afartan sadar inaan soo guuriyo ama shantan sadar inaan soo guuriyo uma aan baahni waa position iyo waqti iyo energy baan dhuminayo maxaa adeegsanayaa functionkii hore aan u samaystay laftigiisa adeegsanaya waxaan dhahayaa waraa functionkan adigu waxa ay qaabilsan tahay isku dardarinta hana wixii ka dhiman anaa ku darsanayo oo ah anaa toddoba u qaybiyo anaa ku darsanaya okay marka koowaad functionkana u yeeranaya waxaana ku kaydinayaa xogta meel ku kaydsanaya waxaan dhahay functionka u yeer muxuu function magaciisa sum waana inaan siiya ciddaan isku dardarayo maanta ciddaan isku dardarayo waa barometerkan waana barometerkan laftigiisa siiya oo dhaha barometer siiya okay waa u yeertay intaa waxay siinaysaa wadartii okay wadartii waxaa rabaa inaan meel ku kaydsado tusaale halkaan ku kaydsanaya waxaan dhahayaa tusaale oo kale const sum variable sum la yiraahdo waxa ku kirsado wadartan hadda sum maxaa ku jira 190 ma ayada xisaabisay may functionkana u soo xisaabiyay functionkana u soo xisaabiyay halkaan uu tagay markaas soo xisaabishay halkaas intuu tago soo xishay hadda samta waxa ku jira meeshaas bal waxa dhahayaa const waxa xisaabinaya waxaan shaacinaya const la average const average const la shaacinaya waxaan dhahayaa waa samka oo loo qaybshay 7 average ka shaacinaya average pointers samkan oo inta ay soo bixi doonto oo loo qaybsato sababta waa 7 gud kow labo saddex afar shan lix toddoba kabacdi waxaa dhahayaa functionkan dhan waxaa ii soo celisaa return waxaa igu samaysaa average-ka return average igu samay wabillahi tawfiiq khalaas wuu xisaabshay hadda waxaa dhahayaa haddaan rabaa inaan inta average kala xisaabiyo ii taaba shaashadda igu soo daawa kaliya intaa shaashadda igu soo daawa average-kan horaa loo xisaabiyey shaashadda igu soo daawa console.log adaya waxa uu yeelanayaa functionkii average waxaana siinayaa qasab waana siiyaa waxa aan rabaa inuu xisaabiyo average-kooda oo amaanta grades okay qofkaan celceliskiisu waxaa weeye 85 haddaan ka hor meesha 66 ku celiyo 66 ku celiyo qofkaas wuxuu noqonayaa 84 divided haddaan ka hor meesha ka dhigo tusaale qofkaan uu keenay meesha 66 99 kale uu keenay 89 noqonaya haddaan meeshaas tusaale 70 ka ka dhigo tusaale ahaan ka hor 10 uu divided keenay 80 uu dhacayaa sababta maadooyin kale oo 99 boqol haysta maadooyinka soo balance garanay okay waxa laga yaabaa leedahay ka war haddii qofka maado kale ugu daro maado kale 99 uu keenay waxa arkaan 99 jees noqotay ka war haddii ugu daro maado kale 99 ayuu keenay 109 oops waxa khaldan ساعد العلس ونون كلا بقول الساعد ساعد العلس كقف وضعف كلا بقول كلا بقول ما دون كان أروح أجداني بقول كلا بقول كوسين إلا هالكلام ما دم أهل العلس كنا بقول بقول كي بقول ماشي أحكي خلدين هذا هو ماشي ما كان حسابنا وضعت فانكشن كان وضعت إنه حسابنا أنت على وضعت إنه حسابنا حتى هو قدرنا
laakiin fiiri markaan average ka sameynay waxa u qaybinay toddoba u qaybinay toddoba waa laaf maanta all bay toddoba ahaayeen haddana waxaan kusii darnay waa meeqa kow labo saddex afar shan lix toddobadaasaa la ahaa laba waxaan kusii darnay maado maanta toddoba maaha waa sagaal haddii aan ka hor sagaal u qaybino sideed shan buu noqonaya codeyska ka hor haddaan haddana bedelo sagaashan sagaal fara ku daro oo haddana sii bedelo sagaashan sagaal fara ku daro haddana waxaa aragtay codeyskana waa boqol dhaafay haddaba mar kasta maana halkan bedelaa haddaa kuwan bedelo maana halkan bedelaa jawaabtu waxa weeye may hal mar baa bedeli kartaa oo meesha tiro caadiga siin lahayn waxaan dhahaynaa samka waxa u qaybisaa intuu dheerku yahay we don't care intuu yahay waxba nagama gelin intuu yahay u qaybi soo xisaabso adigu intuu yahay qayb see u dhahaynaa waxaan dhahaynaa barometerka lagu siiyey waxaa dhow gradiska noqonaya barometerka lagu siiyey lengthkiisa barometer length خلاص mar dambe isbedeli mayno halkan waxaad automatic ku dar waxaad ku dar meeshaas boqolkiiba boqol laaf mayso mar kasta celcelisku si sax ku xisaabanaya halkan mar dambe uma baahna inaad bixiso total function mar dambe ku soo laabanayso billahi tawfiiq haddaba function saas u fiican yahay yani shaqa u dhiibanaysaa shaqadii ku qabanaya hadda waxaa isticmaalaysaa meel kasta u baahatay in shaqadii lagu qabto waxaa isticmaalaysaa sida halkan functionka magaciisa kaliya iyo wixii aad rabtaan ana u dhiibatid functionka magaciisa maanta average baa leedahay average waa kan waxaan ana u dhiibanana waxa weeye grades haddaa qof labaad grades sameeyo sameeyo qof labaad baa grades sameeyo grades 2 waxa yiraahdaa sameeynaya oo tusaale waa qof labaad natiijadiisa koyton buu keenay 45 buu keenay waa qof laysiya 87 buu keenay madu ku roon yahay 45 buu haddana keenay 99 buu keenay I don't know waa luqad aad u fiican marka okay waxaan rabaa qofkan celceliskiisa ana xisaabiyo see dhahaya mar labaad waxa uu yeeranaya isla functionkii magaciisa oo baahan inaan mar labaad qofkan gaar u xisaabiyo sababta halkan ba qof gaar ma xisaabinayo wax guud baa xisaabinaya waatana meesha gaarka qofkan ku xisaabiyo haddaba isla functionka u yeeranaya waxaan copy meeshii grades aan ka dhahay ba waxa u dhibay maanta grades u dhibay grades 2 baa u dhibay grades 2 qofkan celceliskiisa muxuu ahaa 9 qofkan waxa celceliskiisa qanido haddaba functionkan mar labaad uma baahnin mar dambe uma baahna aad qortid meel kastoo aad u baahato in average lagu xisaabiyo labadan function oo iscaawinaya functionkan iyo functionkan oo iscaawinaya ku dhamaynaya hawsha dhan functionkan waa kana wuxuu hoos ku wataa functionkan hoose oo ah kan uu iscaawinaya kana qayb buu qabanaya wala qaybsanaya shaqada 4.5 kana qayb buu qabanaya qaybtii ka soo hartayna wuxuu dhahayaa kana u dhiibanaya warayga dhamaystirado baana ku qabanayaan meel kasta oo baato in average lagu xisaabinaya functionka kaliya u yeeranaysa asaga kalena gudaha uga yeeranaya hada wabillahi tawfiiq javascript functions وانتس مقال كان او مقال ugu dambeeyo aan ka sameeyno javascript basics wixii inta ka dambeeyo aan sameeyno muqaal yar oo html mid ku xogo css iyo ka bacdi inaan projects dhammaystiran ku sameeyno saddexda luqadood javascript html iyo css inta kulmayno muqaalkan muqaalka assalamu alaykum